asalaamu calaykum maqaarta meel bajogtiin oo markale maqaal cusub ku eegi doonno wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo akhbaaraadada xilligan suuqa laga diiwaan gelinayo Liverpool oo caawa saxiiyo showga markan uu wada dhaqaaqaysa Vinicius ilaa Matata xilli kooxda kubadda cagta ee Brentfordna ee markan gacanta ku soo dhigeen bedelka Brian Mbeumo Arsenal oo si rasmi ah markan u dhameysay sheekada xidiga lagu magacaabo Madueke Newcastle oo Manchester ka dulqaadaysa laacibka lagu magacaabo Hugo Ekitike xilli sidoo kale tan Chelsea ee DRC ka doonayaan Manchester oo iyaguna gacanta ku dhigay Brian Mbeumo Modric oo la soo bandhigay iyo akhbaaraadyo kale ayaan eega oo Eze iyo Arsenal ay kamid yihiin hadii aan muuqaalka ka hesho la garay kanalkana subscribe noo saar kooxda kubadda cagta Arsenal si official ahaatan waxay ugu dhawaaqeen laacibkooda cusub ee Madueke xidigan ay haatan Chelsea ka soo qaadeen lacag gaariya 52 milyan ay marka sheekada iskugu imaaday laacibkan tijaabada caafimaad ka gudbay haatan wuxuu kamid yahay ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Arsenal oo macallimiin qaar Arteta haatan ku soo duulaan tagayo sidoo kale maanta waxa la gabagabeeyay laacibka lagu magacaabo Mosquero kaas oo Valencia Arsenal 20 milyan ugu imaanaya ku dhow laacibka lagu magacaabo Kyakros isaguna waa la gabagabeynayo mar dhow sheekadiisa way dhamaanaysaa sida oo ay tahay haatan Arsenal waxay u jeesanayaan laacibka lagu magacaabo Eze wiilka kooxda kubadda cagta Crystal Palace ayaa haatan u jeesanaya maadaama Mosquero iyo xidiga kale ee la yiraahdo Kyakros haatan sheekadooda la gabagabeeyay kaliyana Kyakros sheekadiisa dhiman tahay in lagu dhawaaqo haatan kooxda kubadda cagta Arsenal waxay rabaan inay soo xirigeliyaan wiilka u ciyaara Crystal Palace ninka la yiraahdo Eze kaas oo lagu qiimeeyay lacag gaari 68 milyan marka loo fiiriyo lacagihii Kyakros haatan laga bixinayo waa ka lacag yar yahay laacibkan marka Eze ayaa lacag badnaanaya marka Eze ay haatan Arsenal u jeesanayaan kooxda ka dhisan waqooyiga London haatan waxay diyaar u tahay in ay sheekadan markan galaan oo laacibkan ay marka sheekadiisa si toos ugu wada jeestaan maadaama haatan ay soo gabagabeeyeen saxiyo waaweyn marka Gunners maanta suuq ayaa u kala xiranba dhinaca kale kooxda kubadda cagta Liverpool waxa markaan ay u muuqdaan kuwa saxiyo la yaab leh markaan sameynaya marka eegto laacibka lagu magacaabo Matata oo Crystal Palace ay haatan u dhaqaaqeen xidigana waliba waxay la yeesheen contact ayaa la yeesheen sida haatan majaladaha England ka soo baxay wada daawacayaan majalada The Goal oo kale waxay leedahay Liverpool si shoog ay markan ugu dhaqaaqeen wiilka Crystal Palace ninka lagu magacaabo Matata kaas oo u arkaan bedelka Darwin Núñez laacibkan ayaa ka dhaqaaqaya qalcadda Anfield isagoo dhanka iyo kooxda kubadda cagta Napoli u wareegaya waa ninka la yiraahdo Darwin bedelkiisa marka waxa la qaadaya ninka lagu magacaabo Matata kaas oo kooxda kubadda cagta Crystal Palace u ciyaara xidigan Manchester United ayaa doonaysay ayaamihii ugu dambeeyay laakiin way iskaga bixin maadaama lacag badan oo 60 milyan ku dhow lacag ninka lagu rabo Liverpool haatan si shooga ay markan ugu dhaqaaqeen ninka lagu magacaabo Matata marka Liverpool Benjamin Sesko ayaa isku soo bandhigay wada hadal ayaa la bilaabeen laakiinse arinta haatan shooga waxay tahay in Matata ay u dhaqaaqaan marka Joseph Philip Matata markan Liverpool iyo iyagu wada kulmeen oo markan meeting ayaa dhex maray labada dhinac marka Paris ayaa lagu kulmay sheekaduna markan waxay u muuqataa Matata inuu dhanka iyo Liverpool u dhaqaaqayo marka Liverpool markan si shooga Matata ayaa markan kulan oo la yeesheenba sidoo kale umuuraha haatan Liverpool laga diiwaan geliyay waxa qayb ka ah majaladaha The Mirror iyo The Standard waxay soo xiganayaan majalada Cadena Ser oo Spain ka soo baxda waxayna leeyihiin Liverpool si surprise ay markan ugu dhaqaaqeen laacibka Vinicius Junior Liverpool ayaa haatan indhaha ku haysa wiilka reer Brazil ninka lagu magacaabo Vinicius inay soo qaadan ay rabaan majalada lagu magacaabo Cadena Ser ayaa warbixinta banaanka keentay labada majaladooda kale ah The Mirror iyo The Standardna iyaga ay ka soo xiganayaan warbixinta kooxda kubadda cagta Liverpool haatan waxa la leeyahay gaari 130 milyan ilaa 120 milyan ay markan ku doonayeen Vinicius Junior oo Real Madrid waxay ka doonayeen xidiga lagu magacaabo Rodrigo oo kooxda ka dhisan Bernabeu iskaga dhaqaaqaya haatan Liverpool si surprise markan Vinicius Junior ay ugu dhaqaaqayaan marka Liverpool galabta ilaa caawa waxay u dhaqaaqayaan dhaqaaqyo waaliya ay sameynayaan marna Matata marna Vinicius Junior marka waa si la yaab leh ay markan u shaqeynayaan kooxda kubadda cagta Liverpool haatan macna Arne Slot wuxuu doonayaa inuu laacibka la yiraahdo Vinicius Junior Madrid ka soo qaato laacibkan wax contractiya haatan Madrid ma siinay walow la leeyahay ilaa heshiis gaari 2030 ayuu qaranka ugu duugaya contractiga haatan Madrid oo kula jirina wuxuu ka egyahay 2027 kan iraahday 2027 ayuu haatan contractigiisa ku iyo Vinicius laakiin Madrid waxay rabaan sano kale inay ugu daraan oo gaarsiiyeen ilaa 2029 ilaa 2030 marka Vinicius markan kooxda Liverpool ayaa doonaysa dhinaca kale tana kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa markan waxay ku dhow yihiin qaadashada Hugo Ekitike iyagoo haatan wada hadal la bilaabay laacibka Faransiiska u dhashay kooxda Frankfurt
Eintracht Frankfurt u ciyaara wiilkan sidoo kaleeto kooxda qalcadda Old Trafford ka dhisan ayaa si aad u doonaysa laakiinse tartanka markan waxaa ku horeysa kooxda ST James baa ku ciyaarta ee Newcastle United sidoo kaleeto Liverpool tartanka qayb ay ka laakiinse Newcastle ayaa markan wada xaajoodin la gashay laacibka lagu magacaabo Hugo Ekitike kaas oo markan Premier League ku soo wajahan wiilkan cajiibka ah ee lambarka kalaad ugu ciyaara kooxda Eintracht Frankfurt markan kooxda ka dhisan qalcadda ST James Park ee Newcastle ayuu markan ku soo wajahay halka ayuuna markan wada hadal la bilaabay marka Newcastle United iyo Frankfurt labada kooxood haatan wada hadal ayaa u socda sida haatan uu warinayo Nicolas Fabrizio marka kooxda kubadda cagta Newcastle waxay u muuqdaan kuwa ku guuleysanaya loolanka loogu jiro laacibka lagu magacaabo Hugo Ekitike kaas oo haatan Germany ka soo dhaqaaqaya marka kooxda ka dhisan SC James Park ninkan ay markan gacanta ku soo dhigayaan sidoo kale kooxda kubadda cagta Brentford ugu dambeyn waxay gacanta ku dhigeen bedelka Bryan Mbeumo oo kooxda Manchester United u dhaqaaqaya markan bedelkiisa ay soo xirigeliyeen nimankan markan waxay rabaan laacibkan in la yiraahdo Omar Hazen kaas oo kooxda kubadda cagta Juventus u ciyaara inay soo qaadaan laacibkan ay u arkaan bedelka oo ku haboon Bryan Mbeumo maadaama Manchester United kaliya la yiri war inta bedelka Mbeumo helayna la suga ninkan la yiraahdo Omar Hazen ayaa haatan bedelkiisa ka dhigteen ninkan ayaana haatan kooxda Brentford markan heshiis la gaaraya sida haatan The Standard ay warinayso marka Manchester United iyo la yiraahdo Bryan Mbeumo haatan waxa la warinaya in Manchester United dalabkii ugu dambeeyo rasmiya ee markan ay diriyaan waana dalab gaari 65 milyan marka kooxda ka dhisan Old Trafford ugu dambeyn Bryan Mbeumo dalab ay ka gudbinayaan shakadiisa way dheeraatay ninkan waalna ninka labaad mar walba suuqa loogu hadal inta badan kiyo korosa sidaas ahayo haatan ugu dambeyn shakadiisa gabagabtay Bryan Mbeumo iyo Manchester Unitedna maalin walba warbixin cusub ayaa ka imaanaysa marka kooxda ka dhisan Old Trafford ugu dambeyn waxay gabagabeynayaan shakada Bryan Mbeumo marka macallin Amorim wuxuu doonayaa xidigan inuu soo xareeyo xidiga kaleetana oo weerar ka ciyaar sida lambar 9 haatan ee Manchester aad iyo aad u baad koobayso in la soo qaado ayuu doonaya Dusan Vlahovic iyo Benjamin Sesko rag badan ayaa bartilmaameed u ah kooxda oo Amorim hogaamiyo marka sidoo kale ciyaartoy qalbada ka ciyaarana target ayuu ka dhiganaya marka laakiin inta waxa hortaagan heshiiska Bryan Mbeumo oo dhinacan u dhicin wax kala lama sameey karo laakiin ugu dambeyn shakadii way gabagabowaysaa Bryan Mbeumo kooxda Manchester United ayuu noqonayaaba dhinaca kale Luka Modric ugu dambeyn waqtigiisii Madrid soo dhamaaday si rasmi ah wuxuu ugu biiray kooxda AC Milan laacibkan ayaana maanta la soo dhaweeyay waxaana lagu soo dhaweeyay qalcadda San Siro ninkan ayaana lambarka 14aad ee kooxda Milan farta laga saaray Luka Modric markan waayo cusub ayuu markan ka bilaabaya garoonka San Siro ee ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee AC Milan marka AC Milan nin weyn ayaa markan ku soo biiray waa laacib dhaafay Luka Modric markan wuxuu qayb ka noqonayaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa markaan iskaga dhaqaaqay laacibka lagu magacaabo Diazizi waxa laga reebay koobka kooxaha adduunka horta ninkan Aston Villa ayuu amaah ku jooga soo noqday waxa la yiri bosco ma hayo marka Enzo Maresca shax ayuu toosistay wuxuu yiri war heede dhinaca iga mar sida daraadeed haatan laacibkan wuu baxaya Chelsea ninka way iska fasaxayaan laakiinse kooxda Newcastle United ayaa markaan laacibkan doonaysa macallin Eddie Howe ayaana markaan indhaha ku haya difaaca lagu magacaabo Diazizi inuu soo xirigeliyo laacibkan amaahdi Aston Villa way soo dhamaatay Chelsea ayuu ku soo noqday koobka kooxaha adduunka waa laga reebay midana waxay ahayd ifafaalo muujinaya in la leeyahay Diazizi beec ayaa tahay oo waa lagu gadayaaba marka kooxda Chelsea booska agama banaana ugu dambeyn Newcastle United ayaa timid oo laacibkan haatan doonaysa inay soo xirigeliyaan marka nimanka ka dhisan qalcadda SC James Park rag badan ay si aad u baadigoobayaan marka Diazizina qayb ayuu ka noqonayaa ragga ay haatan baadigoobayso kooxda kubadda cagta ee Newcastle United marka Newcastle ugu dambeyn Diazizi ayay Chelsea ka soo qaadayaanba waan arki doonaa wixii ka soo kordhay sheekooyinka iyo waxyaabaha kale ee la diiwaan geliyo دي مقال كيشن ولا قري كأنك سبسكرايب نصر goodbye